السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها سود وهذا هل كان ناس تانا ومعلم channel قد مركور جنلك أسبوع تتفضل سبسكرايب نصار waxaan rabaa arrin runtii dhawaanahan social mediaha sawiro la soo dhigayo oo ku saabsan alla u naxariisto walaasheen hooyadeed Samiixi Qaliil ayaa runtii soo fadhiisatay oo ka hadashay arrintaas shakhsiyan waa arkay runtii qofka in loo tacsiiyo waa wax fiican waa wax oo diiniyan ah in qalbiga loo dejiyo murugada la qaybsado wax fiican laakiin markaas u fiirisay sawiradan la dhigayo social mediaha kastoo markuu qof murugaysan yahay sawirada xasuus ay ku reebayaan inta badan marka wax fiican ma aha waayo qofka waxa laga yaabaa qofkii hadduu iloobi lahaa xitaa mar walba uu telefoon furo ama ishiis inay ku dhaceyso macnaha uu soo laabanayo qofkii marka ayada kaligeed ma aha runtii qof walba muslim ah walaal ah ama caan iyo ahaanin oo laga geeriyoodo geeridu wax xanuun badan waayo qof walba oo noolna wada dhimini sida runtii oo macnaha oo aan wada ogna dhammaanteena oo diinteena macnaha ku xusan marka laakiin hadda walaasheen way caawatay way soo hadashay markaasi u fiirisan waxa fiican in la qaato arrinta ayada ah si wanaagsan loo qaato oo runtii ani shakhsiyan geerida runtii markay dhacday gabadh walaasheen ah runtii qofku waxa habboon in la waco ama runtii ama masjid loo qoro bis laakiin in sawiradii iyo ay runtii way noo sheegtay in hooyadeed ay wax sawir laga haynin laakiin hal video oo ayada hooyada iskula jiraan way wada faraxsan yihiin jawi aad u qurux badan ay kula jiraan oo maamada in shaqo qabto uma inta badan la wareejinayay marka waana arrin runtii murugo leh markaas u fiirisid in waalidkii oo geeriyooday oo qofkii la rabay inuu samro oo haddana mar walba soo hordhigayo kaligeed ma ahan walaalaal dhashay ehel bay leedahay maamada geeriyood Allah u naxariisto walaal bay leedahay oo Samiixi Qaliil habar u ah ama abti u ah waxay aadaan laakiin waa un waalidiin dhan dad badan oo laga geeriyooday ayaa runtii dhibaato noocan camal inta badan la kulmo hadda 2 isbuuc ka hor Ajax ay ahayd runtii in wiilkiisu soo fadhiistay uu ka hadlay inay habbooneen in sawirada la wareejiyo ama qofkii oo runtii sawiradiisa ama waxyaabaha qofka caanka ku ah aan la soo qaadan inta badan laakiin hadda gabadhan waxay ka caawatay inta badan waxay tahay baraha bulshada gaar ahaan hadday noqon lahayd TikTok hadday noqon lahayd Snapchat ama Facebook YouTube inta badan kuma arkin laakiin inta badan waa TikTok oo ayad caan ay ka tahay Snapchat hadday noqon lahayd in sawirada la wareejiyo wax noocaas camal ama Facebook hadday ahaan lahayd horta inta badan ka caawatay waana wax fiican in qofka la dhageysto hadalkiisa la qadariyo waayo waa qof murugaysan waa qof laga geeriyooday markaas si kale loo fiirin runtii wax oo ayada kaligeed ma hasaan inay sheegay runtii dad badan oo caan ah ay arrinta dhib ku qaba inta badan marka waxa fiican si guud ahaan in runtii bulshada ay ku baraarugto arrintan laga waantoobo qofka markii uu murugaysan yahay in murugada la qaybsado waa wax fiican laakiin in sawiradii xasuusta ku reebay mar walba hortiisa la soo dhigo hadday noqon lahayd video hadday noqon lahayd ama sawir labadaba runtii qof hortiisa la soo dhigo qofkii waxa laga yaabaa inuusan qofkii hilmaamin oo maskaxdiisa maanta kulli ku soo laabto marka Samiixi Qaliil ayaa runtii soo duubtay video soconayo 1 daqiiqo ku dhawaad ama 1 daqiiqo iyo wax yar marka walaasheen runtii videogeed aan dhageysan doonaa waxaan jeclaan lahaa in la ixtiraamo oo runtii aad loo ixtiraamo ani hadda message aan gudbinayo Samiixi Qaliil kali ma ahan message aan gudbinayo waxay tahay in arrintan bataanta ma laga waantoobo aan la soo qaadanin waa runtii ayada kali ma aha qof kasta ay ku dhici doontaa oo baraha bulshada ku jiro waana wax fiican in runtii laga waantoobo oo runtii la joojiyo diiniyan runtii qofka bini'aadanka ah markuu murugaysan yahay in loo tago la booqdo waa wax fiican qof bini'aadanka waxa la wuxuu caawitaan u baahan yahay markay geeri gasho iyo markuu aroos galayo iyo markuu xanuunsan yahay uu sariir saaran yahay qof bini'aadanka waxa laga yaabaa inuusan qofka macnaha markaas camal qof gargaar u baahan yahay qof markuu geeriyoodo camal in la duugo u baahan yahay caawitaan u baahan yahay qofku geeriyoodo in loo tacsiyo u baahan yahay oo la garb istaago oo la qaybsado murugada ayuu u baahnaana marka
qofkii xanuunsan in la booqdo lasoo salaamo quraan lagu soo akhriyo nafteeda waa wax fiican oo diiniyan ah oo runtii oo murugidaas culayska saaran qofku iloowa markuu qof walaal u imaado culayska saarna uu hilmaama qof markuu caabitaan u baahan garab u baahan tusaale ahaan arooska camal waxyaaba ugu weyn qofka uu garab u baahan yahay taayada nafteedana waa muhiim in qofka la garab istaago marka hadda waxaan dhihi lahaa waxay maraysaa waqtiga qofka bini'aadanka uu garab u baahnaa in arrintan runtii laga waantoobo ay aad u fiican tahay mana aha walaasheen keli ah waa qof walba oo muslim ah in oo runtii baraha bulshada caanka ah macay u ka hanin in markay tacsi gasho sawirradii qofka geeriyooday ama waalid ha ahaado ama maal ha ahaado aan soo xasuusinin runtii waa wax aad u fiican waxaan dhegeysan doonaa clipkaas yar ee walaasheen soo duubtay oo soconaya muddo 1 daqiiqo bar ah waxaana kula talinayaa muslimiinta meel walba joogaan dal iyo dibad gabadhan gabadh walaasheen waaye waa qof caan ah magac ku leh baraha bulshada in la dhageysto la ixtiraamo marka ayada laga soo tagana bulshada inteeda kale tan arrintan laga waantoobo ay muhiim tahay waa ogahay inay yar adag tahay oo qofka waxa laga yaabaa inuusan xumaato ka wadin runtii uu isleeyahay in qofkan bini'aadanka camal waa laga geeriyooday ee la qaybso xanuunka inuu isleeyahay laakiin haddana message hadda aan ka qaadan karno walaasheen waxay tahay in runtii qofkii xasuustiisa ay soo laalaabanaysa maanta kulli ee adkaanayso inuu qofki iloobo waana wax sax ah markaas u fiiriso qofkii ku hor yaala maanta kulli ama sawirka arkaysa ama codka maqli la soo duubay ama waxa laga yaabaa in oo runtii qaab kaleeto oo runtii aad u aragtid marka walaasheen ayadan qalbiga Allah wanaajiyo ayada inta dhalatay iyo inta muslim laga geeyo dhamaantood runtii Allah runtii sabri ma Allah si anakan runtii qof walba waalid uu ka geeriyooday oo uu dareemi karaa laakiin geerida sida u kala dambaysa u kala xanuun badan tahay marka waxaan dhihi lahaa gabadha walaasheen ah hala dhageysto hala ixtiraamo codsigeedana ha la qaato runtii qof walbana ha ka waanto arrinta ayada way message-ka ugu muhiimsan oo halkan aan ka diray shakhsiyan سمحي قليلنا runtii samri ima Allah siiyo ayadii ehelkeedii qaraabada dhamaantood video yar ay soo duubtay aan dhageysan doona asxaabta halkan staan waa macallin channel midda kale hadda u gubanay maxaa way aan rabay inaan inta u soo galo aan ka hadlo social media meel walba iyada ay u horeyso aniga wajigeeda waligeed ma soo dhigin iyadoo indha shareeran videogaas waa la wadaa waan arkay aniga meesheeda waan ka saaray si uu ii dhibin waan ku baryaa aniga saar hawadin uu ii dhibaya codkeeda sataa uu ii dhibaya mid kale xataa shalaa liga duubo anoo qabriga joogo beer naxaman igu yaala miya mi isdhaysiin miya gabadhan videoga amay aragtaa xanuunkaan dareemay ma dareemi kartid